mar walba waxa arkaysa wax aad iyo aad kaaga yaabiyo ama wax qof walba wax easy la tahay laakiin hadhooti ama dadka taageero ama bulshada taageerto ama Soomaalida dadka ku xiran waxay ka aad iyo aad ula yaabeen ama dadka aad iyo aad ugu falceliyeen qoraalkii soo qabtay fanaanada Rasmi Reis oo ahayd in ay ku soo laabatay fankii marka waana arin aad loo yaabay oo boqolkiiba boqol sababtoo tahay shalay afkii ku tiri fanki waa ka baxay maanta waxay taagan tahay fanki waan ku soo laabtay marka taasna waxay cadeynaysaa ama in shalay ka ahayn si dhab ah ama in ka ahayn si xaqiiqo ah ugu bixin sababtoo tahay arintan arin aad iyo aad u soo laabatay ama Soomaalida fanaaniinta boqolkiiba boqol ku soo laabatay marka sababta soo laabanayso ama dhanka fanaaniinta Soomaalida ay fanka ugu soo laabanayaan intay ka baxaan ku oranayaan ama saacado ka bacdi ama maalmo ka bacdi ku leeyihiin fanka ku soo laaban marka arintan waxa ku qasbayo marka ay ku leeyihiin fanka waa ka baxan marka ama saacado ka bacdi ama dadkii markii ogaadaan ama dadkii ku xirnaa ama bulshada ku xirneed ama asxaabta ku xirneed ama taageerayaasha ku xirneed markii ogaadaan ay yar ama ku wada farxaan ama ka wada naxaan in ay markaas tiraado fanka ay ku soo laabtay ama dadkii ku xirnaa ama dadkii taageeray ama dadkii fankeedii taageeray ama markaas ay ka naxayaan sababtoo tahay mar wixii hada ka baxday ama mar qalbigaaga soo galeen ama mar afkaaga ka dhawaajisay in aad ka bixayso waxa boqolkiiba boqol fiican ama boqolkiiba 99 xitaa la dhihi karaa in aad ka dhabayso ama wixii aad tiri ama hadalkii ka soo baxay in aad ka dhabayso ama marka hore wax walba aad sameynayso ama ficil walba ku dhaqaaqayso waa in aad ka fiirsataa sababtoo tahay waxaan noqon karaan wax hadhooti kugu soo laaban doono ama wax hadhooti aad ka shaleyn doonto ama wax walba in aad mar walba ku dhaqaaqayso in aad maskax degan ku xisaabtanto marka aad wax walba qiimeyso ama qiimeen maalmo badan ka qaataan in aad markaas wixii kula qurux badan ama wixii markaas maskaxdaada ku tiraado in aad ku dhaqaaqdo ayaa fiican in badan marka iyada ugu maharayso in ay tiraado fanka ay ku soo laabtay ama ay dib ugu soo laabato fanaaniin fara badan baa waxaas sameeyay rag iyo dumar oo leh fanaaniin saameyn fara badan ku leh dhanka fanka ayaa waxaas ku dhaqaaqay oo inta dhahan fanka ayaan ka baxnay hadda ku soo laabanayo marka taasna waxay cadeynaysaa ama in ay yihiin dad aan go'aankooda aan adkeen ama dad aan isku kalsooneen ama dad aan go'aan lahayn sababtoo taa wax walba aad sameynayso ka hore inaad ka fiirsato ama wax walba markaas ka bacdi markii wixii aad ka fiirsato ama wixii markaas adiga qiimo fara badan ku sameyso in aad ku dhaqaaqdo ayaa qurux badan in badan marka fanaaniin fara badan baa inta sas go'aan u qaateen ay ka laabteen qaaliladan baa kamid ah fanaaniintii dhanka dumarka hadii loo fiirsho kamid ah BK ayaa kamid ah fanaaniin fara badan aan la soo koobi karin ayaa kamid ah in ay yiraahdeen fanka waa ka baxnay fankin ay ka dhabeeyeen in ka baxeen ama meesha ay ugu tanaazuleen marka iyadana waxaan rujeen doonaa in ay go'aankaas ka fiirsan doonto ama ay dib u eegi doonto marka waan arki doonaa wixii soo cusboonaado markaas ama wixii markaas dhankeeda ku soo biiro ama dhanka social media marka hale next video waxaan leeyahay bye bye